shirkan oo looga hadlayay sidii mashaariicda horumarineed ee Jarmalku maalgeliyo loo sii dardargelin lahaa kuwa cusubna loo bilaabi lahaa ayaa waxa uu ka dhacay guriga martida ee Jubbaland waxaana ka soo qayb galay inta badan wasiirada wasaaradaha iyo agaasimayaasha guud ee Jubbaland. Marius Roh oo ah madaxa xiriirka safaaradda Jarmalka ayaa waxa uu sheegay inay bilaabayaan dardargelinta mashaariicdii hore ee ay fuliyeen oo ay ka mid yihiin hawlaha dib u dhiska sida guriyeynta, ka qayb qaadashada arrimaha horumarinta haweenka iyo xarumo lagu kobcinayo xirfadaha bulshada ku dhaqan Jubbaland. We are engaged in Jubaland and Gedo and in Kismayo with different projects. Waxaan ka hawlgalnaa gobolka Gedo iyo Kismayo oo aan ka fulino mashaariic kala duwan oo ay ka mid tahay mashaariicda farsamada gacanta oo aanu ka hirgelin doono Kismayo. Waxaanu ka wada hadalnay sidii loo hirgelin lahaa mashaariic dhismo oo rasmi ah iyo sida ay muhiim ugu tahay dawladda in la helo mashaariic dhismo oo rasmi ah tayo badanna leh kuwaasi oo waara sanado badan waxna u tara dadka reer Jubbaland. waxaanu hoosta ka xariiqnay inay jiraan horumarro la sameeyay. waxaan aragnay horumarka ay sameysay Jubbaland waana wax aan u aragnay inay tahay shuruud muhiim u ah si ballaarinta caawinta aan geysano. caqabadaha magaaladan Kismaayo waa ay badan yihiin. waxaa jira barakacayaal iyo qaxooti. in isdhaxgal loo sameeyo waa wax adag. laakiin dawladda Jarmalku waxa ay la shaqeynaysaa Jubbaland si loo caawiyo. waxaanu rajaynaynaa inuu jiri doono horumar laga sameeyo sidii dadkan loogu furi lahaa xarumo cusub si loogu xanaaneeyo aana iskaga kaashano horumarintooda. waxa aan sidoo kale aragnay baahiyo dhashay fatahaadihii kadib. dawladda Jarmalku waxa ay ka shaqeynaysaa in caawimaad laga geysto arrimahan. waxaanu eegaynaa sida loo kordhin karo mucaawinooyinka. We are already active with humanitarian assistance, but maybe there is space to increase fast assistance. ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud oo shirka maanta shir gudoominayay isla markaana la hadlay Jubbaland TV ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin soona dhaweynayaan dhammaan mashaariicdaas dhankoodana ay ka shaqeynayaan iyagoo la kaashanaya wasaaradaha ay khusayso. dawladda Jarmalka iyo hay'adda GIZ oo dhinaca horumarka iyo dhinaca gargaarka bini'aadnimo wadahadallada aad iyo aad bay noogu dhammaadeen, si xiisay u dhammaadeen, guul bayna ku dhammaadeen. waxay ka qabanayaan dawladda Jubbaland mashaariic aad iyo aad u fara badan iyo gargaar bini'aadnimo. aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dawladda Jarmalka iyo hay'adda GIZ mashaariicda ka wada Jubbaland iyo kuwa cusub hadda soo ay ka bilaabo doonto. aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Shukri Aadan Sayid, warbaahinta Jubbaland, Kismaayo.